wata waxa barihi dama leena soo badanayay guurka gabdhaha yaryar iyo odayaasha waaweyn oo waxaad arkaysaa gabadh aad u daayaro oday 70 80 ama 60 sano guursatay arintaas waxa keena lacag arintaas waxa keena lacag waa kartay maxaa yeelay gabadha markii gabdhihii horeeto nin oday eesas uma fiirin jirin wiilka qof jiilba jiilkiisa la jaan qaado ahaa hadda maxay noqotay gabadha inay ninkaas interest ay ku raacdo ama reerkooda mustaqbal dambe ay ugu suubinayso ama ay nolosheeda ha ahaato aad ku noolaatid nolol raaxa leh dhibaataynta laga dhaxla guurka dadka kala da'da ah in badan dhibaato laga dhaxlaa waayo maxaa yeelay isku jinsiyad xataa maahan mana isu dhow xataa maxaa yeelay gabadhu waa 10 iyo 4 jir odagana waa 9 jir farqi u dhaxeeyo maxaa kana inkastoo Soomaalida ay dhihayso ninku dhal kara ku dhaqi karo aniga ma qabo ana aaminsanay gabadhaas waxa keenay in reerka daruf ay ugu daraan ama gabadha ay ayada daruf u raacdo ninkaas waayahay sidoo kale waxa jira dumar da'weyn oo wiilal yaryar guursanaya iyadana arintaas maxaa keena waxa keenay wiilkaas inuu soo wax lacag u san haysan oo ku gal gabadhaas islaantaas weyn in noloshiisa ay maareyso waana wax xaqiiqo ah dhacday taasa keento caqabad intee laga guurarka noocaas ama dadka kala da'da ama dadka aan aqoonta badan isku lahayn laakiin dantu ay isku keento ay sameeyaan wiilkan waxa laga yaabaa inay daruf haysato waxa laga yaabaa inuu wax kaar haysanin oo ku hadal xataa uusan haysanin oo sidii kara heerkaaga maanta waa sabool naagtan weyn maanta markaa guursato waxbay haysataa reerkaagana waxay keenaysaa gabadh inay ayadana ku xisaabtamo reerkaaga waa sabool waxay haystaan ma lahan ninkan ka weyn maanta guursato waxbuu ku qabanaya marka caqabadaha badan ayaa jira ciidaa ilaa ay burburka ilaa inta ka dhaxle marka waxaan ka codsanaa madaxweynaha hadduu i maqlaayo in dhalinta uu wax u qabto inuu dhalinta xarumo u sameeyo oo nacamtay shaqo abuur u sameeyo uu garab siiyo uu saacido waan ka codsanayaa wata kordhood xad ka dhawaajisay geeraar dhinaca jacaylka goorahan ba aniguna geeraarka waan sugaa waxaan doonayaa daawadayaasha in geeraarkaas aad la wadaagto in badan ciidaay geeraarkan 15 shumiyo ku jiray sidana u dhaxayay dhul tariiqmay 70 baa qof bini aadam tali kara 24 bin inta waaleysna jalab talaada soo dareeri kara adiga tubta maanta itaagay abanka tirta aqoonta u tagaa kula taliyaan taas tabteed itaamadeeda hadii la waayo kale ugu taagan ayaan tilmaankaaga rabaa tuf itaaliin waxba ka tareen dhakhtarkiisa adigu taa tartiib iga daaweyn kartaa tirada sanadku waa 12 bilood waqtiga daba taagan tiraayin iska tartiib u kalsoona oo talaalay baasaboortiga roomku ateed ayaan kaaga dhigaa taxi jacaylkan ku qaadan traffic ganaaxay taxiga jacaylkan ku qaadayo aan traffic ganaaxay hada taxiga jacaylka traffic ganaaxda dhigi karnaa way taxiga ma lahaay be taxi dhanba ma jiro ma jiro baada hoomay iyo wax dhuglada mid meeshaan ugu soo hartay taxi yaa arkaybo liine waxaan doonayaa in sheeko waxaa jirtay aad mar dhexdii aniga iiga sheekayso balse daawadayaashu aysan ogeyn waxaad iiga sheekaysaa waxaan doonayaa daawadayaashana la wadaagto sheekadii ahayd gabadhii guurka qudbasirada sheekadii tiyaatarka aad kula kulantay in badan waxaa jirtay riwaayad la dhahay Shabeel Naagood habeenada kamid ah gabar saaxiibanahay aan soo raacnay gabadha wiilay iskool lagu ogaa iskoolkii way ka tagtay wiilkaas wiilay aroostay markay waxay u raacday meel la dhahayo cagaaran la dhahayo wiilku way soo mehersatay iyadoo qofna ogeyn saaxiib ogeyn qofna aan la soconin aad iyo aadna aan saaxiibtinimadeena aan isku keen dheereed gabadhii ma habeenkii markaa soo baxnay ee tiyaatarka aan nimid ee riwaayada aan fiirsanay waxaan arkay gabadhii oo ilmeynayso maxaa kugu dhacay waxa ma hebel ay ureey waay hay hadda ureeyna markaa u tagan wuxuu yiri waay maxaa lahaa ani malhi xagee kugu arka amal oo yiri ayaa kula socdo qofna ilaa musaan ani asaga aheen waay cagaarna ahna waay hay waxaan dhahay riwaayadii hadda waxay ka sheekeynaysaa qisada guurka qarsoonida ma la socotay may tiri oo intaas riwaayad aad daawanaysa ma la socon miyaa may la ma soconay raadi hay marka waxaa iri bal hadar asaga u tag la hadal waxay tiri asaga hataa wuxuu idhaani wax shaqaan ku leeyahay malaha aniga urkaa malahi camal weyn haas miyaa hadda waayay hooyaha islaanta gabadheed waxay ku dhaysay ma ogeedaan markaas tan ma xasuusto maxay dhahaysaa anaa hadda ku sheegayaa marka
habartii waxay tiri gabadheeda markay u timid waxay tiri naag dhakhtarada way waday naag dhakhtarada u geysay dhakhtarkeeda haday u geysay naqdad markay baartay way soo baxday waxay tiri gabadhaada uur bay leedahay bis gabadhaada uur bay leedahay markay tiri waxay tiri calaa calaye calooshaada waxa ku jira calaa calaye calooshaada waxa ku jira calaamadan ku qarsoon cawamaan fiilayn dhakhtaradeenii codgoonayd codkay tiri cirka igu soo dumo caafimaad ma qabo caluuniyo hooyo dhulku way la ciirayaa caradii waa dahabe calaafkaga sooma dumin ay tiri المعنى معناها عرضي والذهب وقفك وناديه والهي calafkaaga sooma duminaytay waxay dar hooyo macnaha saas dhehaysaa ninkeyga waa kaasi barsiyeeri nacamta ninkeyga waa nin madax oo meel weyn haystay tiri orod ay tiri ii keen koobka ma rabee orod ii keen way u tagtay markaasay tiri war hebelow baladeena xalaala wuxuu eebba ka beerisoo barqad maahan oo wanaagsan markaasuu yiri baladeena xalaala wuxuu eebba ka beeray barqad weeye oo wanaagsan balse teena saas uma buureeno beenbeenaan ku sameynay معناها wuxuu ka turjumayaa wax qiimo ku fadhiya maysan ahayn oo waxaan ana kala sameysanayn baladeena idin waxay tiri baladeena xalaala wuxuu eebba ka beeray soo barqad maahan oo wanaagsan uu soo bood wuxuu yiri baladeena xalaala wuxuu eebba ka beeray barqad weeye wanaagsan laakiin teena saas uma buureeno beenbeenaan ku sameynay markaasay tiri ba ayay leegu ogaa nafta biri ma raago oo ma baaqdo ma fogaado kol hadduu bila dhaafo kaama beeri yaqaano alla birqihii ku badbaada nafteeda markaasuu yiri ba oo hoog baraa ka cabdow tag ilaa bilaajo carab biixaan isku maqiiq aday ku taalaa laakiin aan cunugaan aniga ma lihi marka tan waxaan ugu soo daray qastaan ugu soo daray gabdhaha goolka qudbisirada ah inay weligood alhood ka foojignaadaan waxaan hooyo aabo aysan kula ogeyn inaad sameynin inay waalid ka duceystaan kala dambeyn ixtiraam waalidnimana ay muujiyaan ciidaay waxaan doonayaa gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay inta baaqa dhalinta aad u direysay weliba dhinaca jaceylka aanan gaadhin halkaa li sugaan oo aan aada u jeclahay oo ay qaato fanaanadii aad jeclay adigna maryan baan doonayaa inaad iigu soo gabagabayso dhanka heesaha aan kugu soo gabaya mar naasir heesaheeda kuwa iyo lama maahan in badan laakiin heestana kuu qaadayaa baladi baadiyo bulshada dhammaanteed kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waakee baladi baadiyo bulshada dhammaanteed kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waakee barashadiisa bogay ku taale hoy baanisaa barashadiisa bogay ku taale hoy baanisaa bartilmaameedii jaceylkeen iyo bakool kasoo birqaaye baxsanaa alla wiil ku baxsanaa alla wiil ku baxsanaa beer minay baxdo waa barwaaqo loo baraa nugul waaye barbaxramooy iban waakee waanu bogaye anay bilicdiisu ibishaara tagtee waanu bogaye anay bilicdiisu ibishaara tagtee bartilmaameedii jaceylkeen iyo bakool kasoo birqaaye baxsanaa alla igaarka igaar miyaa alla wiil ku baxsanaa guntii kunhanadkii gabagabadii leyna ayaan isla soo gaarnay dhalinta soomaaliyeed ee jaceylka sanadahan jilaysa waalidiinta si isku mida dhammaantood maxaa baaqood u diraysaa adoo fursadan alxoriya ay ku siisay ka faa'iidaysanaya waa mahadsan tahay ciidaay waxaan baaq u jeedinayaa waalidiinta sharafta badan leh ee dhalinta hadda joogto waalidiinta waxaan idin leeyahay meel walbo aad joogtaan dal iyo dibad isku daya inaad dhalintiina aad saacidaan wiilka hadduusan wax haysan inaad gabadhiina ku saacidaan meeshaan maanta waxba oolan beri ilaahay wax ugu keenayaa dhalinta hadda joogaan haddii aan dhanka jaceylka aan soo qaadan inay jaceylka tixgelin siiyaan
ay garab siiyaan ay mudnaan siiyaan. waad mahadsan tahay liin guud ahaanba daawadayaal waxaan halkaasi kusoo gabagabeynayaa waraysigii aan la yeelanay liin xaaji intaan ku kulmi doono mar kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.